laga yaabee inaad maqashay dhulmarayaal lagu magacaabi jiray Marco Polo ibnu Khaldum ama ibnu Battuta laakiin daawade ma maqashay dhulmaraagii weynaa ee Soomaaliyeed Sheikh Sayid Al-Muqdishawi ninkii safarka ka dhigtay noloshana ka dhigtay safar ugu dambeyntiina noqday safiirkii ugu horeeyay ee Afrika u fariista Shiinaha qarniyo ka hor intaan Yurubiyiintu xataa ku fakirin safar noocaas ah ama safiir noocaas ah dhalashadiisii iyo noloshii hore Sheikh Sayid Al-Muqdishawi waxa uu ku dhashay magaalada xeebta ah ee magaalada madaxda u ah Soomaaliya ee Muqdisho qiyaastii sanadkii 1295 magaalada waqtigaasi waxay ahayd dekad weyn oo ay ku kulmaan maraakiibta Carabta Farisiinta Hindida iyo Shiinaha waxa uu ku barbaaray kuna dhax koray qoys Muslim ah oo diinta dhaqanka iyo ganacsigaba ku caanbaxay waxbarashadiisii hore waxa uu ku qaatay masjidka Xamarweyne iyo xarumo kale oo cilmiga Quraanka fiqiga xisaabta badda iyo luqadaha lagu barto markii uu 15 jir noqdayna waxa uu si fiican u aqoon jiray kuna hadli jiray af Soomaaliga Carabiga Farisiga Sawaaxiliga Hindiga iyo luqado kale intii uu safarka ku jirayna waxa uu bartay luqadda Mandarinada ee laga hadlo dalka Shiinaha iyo luqadda Turkiga oo ah luqadii ay isticmaali jireen boqortooyadii Uthmaniyiintu safaradii ugu horeeyay Sheikh Sayid Muqdishawi waxa uu jilbaha u aastay inuu ka hayaamo dhulkiisa isagoo jira daada 20 sano Yaman ayuu iska xaadiriyay gaar ahaan Sanca iyo Cadan waxa uu joogay 3 sano isagoo ku shaqeynayay ganacsiga xawaashka waxa uu kale oo isku howlay qaybida cilmiga xidigiska iyo xisaabinta badda kadib waxa uu u gudbay dhulka Xijaaz Maka iyo Madiina hal sano oo uu ku dhameystay xaj iyo barashada cilmiga fiqiga waxa uu sanadka la kulmay culimo waaweyn Ciraaq waxa uu ka tagay Baghdad 2 sano ayuu ku qaatay barashada taariikhda iyo barashada maamulka ganacsiga ee ka jiray dhulka Ciraaq Shaamna waxa uu tagay Dimashq iyo Qudus hal sano ayuu joogay isagoo xiriir la yeeshay culimo iyo ganacsato safaradiisii bariga fog waxa uu jihaystay dhinaca dalka Hindiya magaalada la yiraahdo Koshikod iyo Gujarat ayuu tagay waxa uu joogay 5 sano waxa uu la kulmay caalimkii Ibn Battuta qiyaastii 1340 labadooduba waxay ka sheekaysteen safaradooda waxa uu Ibn Battuta xasuus gaar ah ka samaystay Sheikh Sayid Al-Muqdishawi isagoo ku tilmaamay nin Soomaaliyeed oo aqoon badeed iyo luqadba Ilaahay ku banaystay cilmigiisa iyo garashadiisuna aad u sareeyo Sheikh Sayid Al-Muqdishawi waxa uu raacay maraakiibta ganacsiga ee u socday Sumatra iyo Java waa Indonesia halkaas oo uu joogay 2 sano iyo dheeraad isagoo xiriir ganacsi ka soo sameeyay Shiinaha iyo shaqadii safiirnimo safarkiisa ugu dheeraa waxa uu ahaa kii uu ku gaaray Guangzhou oo Shiinaha ku taala markii uu halkaas tagay boqortooyadii Yuan ayaa ku soo dhaweysay si milgay iyo maamuus lana u qaabishay waxa uu noqday safiirkii ugu horeeyay Afrika u fariista Shiinaha waxa uu Shiinaha joogay muddo 10 sano waxa uu dhaxdhaxaadiyay heshiisyo ganacsi oo Soomaaliya iyo Shiinaha u dhaxeeya gaar ahaan badeecooyinka sida foolkaanta xawaashka iyo dhar raqiisa oo Shiinaha laga keeni jiray waxa uu bartay luqadda Shiinaha laga hadlay ee Mandarinna si uu u fududeeyo wada hadallada maxalliga ah sanado badan oo safar iyo shaqo diblomaasiyadeed Sheikh Sayid Al-Muqdishawi waxa uu ku soo laabtay magaalada Muqdisho isagoo daa wuxuu halkaas ku dhintay qiyaastii 1361 miilaadiga waxa uu ahaa 66 jir waxa lagu aasay Muqdisho qabrigiisuna waxa uu ka mid yahay meelaha taariikheed ee aadka loo siyaarto dadka qaar ayaaba xusuus sameeya Sheikh Sayid Al-Muqdishawi waxa uu ahaa safiirkii ugu horeeyay Afrika u fariista Shiinaha safariyaqaan Soomaaliyeed oo safar ku tagay 3 qaaradood nin ku hadli jiray ugu yaraan 7 luqadood nin xiriir siyaasadeed iyo ganacsi u sameeyay Soomaalida iyo dalal kala fog sida Shiinaha Indonesia Hindiya Carabta iyo bariga dhexe sheekadiisu waa mid cadeyn u ah sida Soomaalida qarniyadii dhexe ay u ahaayeen dad leh xirfad badeed ganacsato caalami ah iyo culimo aqoon ballaaran leh waxaan ahay Muxyidiin Cabdi oo juqraafi kala socotaan Nabadino